kulanti wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada DSTV waxaan warbixintan ku eegi doonaa dhibaatooyin ba'an oo ka jira deegaanada gobolada dhexe ee bartamaha Soomaaliya. marka horese muuqaalka shardhe la garay lana wadaag saaxiibada. waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida galmudug waxay wajahaysaa dhibaato dhinac kasta oo ugu horeyso cunno yari iyo colaado. ha idaafin kuma dhaafayee waa nuxurka heesaha ka shidan deegaanada galmudug. sanad ka hor galmudug waxay ahayd meesha kaliya ee koonfurta Soomaaliya 100 kiiloomitir oo dhulka ah la iskaga gudbin karo. laakiin haatan xaalku sidaas maaha. qof kasta oo ku sugan deegaanada galmudug wuxuu baadigoob ugu jiraa sida uu u badbaadin lahaa naftiisa. magaalooyinka waaweyn ee galmudug waxaa ka jira cabsi la xiriirta aanooyin qabiil iyo dagaalka al-shabaab. 10 sano ee la soo dhaafay galmudug waxay ka mid ahayd meelaha ugu ammaansan Soomaaliya. laakiin maanta waxay lambarka koowaad uga jirtaa meelaha ugu ammaanka liita uguna cabsida badan koonfurta Soomaaliya. galmudug waxay ka nasiina qabtay dagaalka al-shabaab mana jirin dagaal toos ah iyo qaraxyo waaweyn oo ka dhacay deegaanada galmudug. hase yeeshee halkii sano ee la soo dhaafay galmudug waxaa ka dhacay dagaalo toos oo al-shabaab ku qaadeen iyo sidoo kale qaraxyo waaweyn oo ka dhacay deegaanadaas ayna ku halaagmeen dad mas'uuliyiin ah iyo waxgaradka deegaanadaasi galmudug. dagaalka qabaa'ilka waa sii xoogaysanaya oo dadka ku dhaqan deegaanada miyiga ah ee galmudug qoryaha waaga ayaa ugu bariya gabalkuna waa ugu dhacaa. caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb iyo caasimadda baarlamaanka galmudug ee Cadaado oo sanad ka hor la iskaga lugeyn jiray ayaa haatan diyaaradaha loo kala raacaa sabab la xiriirta cabsi laga qabo dadka reer miyiga ah oo isku baacsanaya aanooyin qabiil. inta u dhaxaysa labadaasi magaalo Dhuusamareeb iyo Gurceel inta u dhaxaysa al-shabaab ayaa go'doomiyay. Balanballe iyo Gurceel ma ba is aadaan oo mar hore ay kala go'een. Cadaado iyo Cabudwaaq la isuma gudbo oo dadku way kala cabsanayaan. Galinsoor inta u dhaxaysa Cadaado iyo Gaalkacyo waxaa xirtay ciidamada daraawiishta galmudug oo laga sugayay inay joojiyaan dhibaatooyinka ka socda deegaanada galmudug. ciidamadu waxay ka cabanayaan mushaar la'aan haysata muddo bilooyin ah. deegaanka Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug waxaa muddo bilooyin ah ka socda dagaal u dhaxeeya dadka deegaanka iyo al-shabaab. wasiirka amniga gudaha dawladda galmudug Axmed Macalin Fiqi wuxuu dhawaaqa xabadda ka socota Bacadweyne ka dhageysanayaa deegaano hoostaga magaalada Hobyo oo aan sidaas uga fogeyn deegaanka dirirtu ka socoto. ilaa iyo hadda ma jiro wax muuqda oo wasiirku ku taray dadka deegaanka ee halkaasi kula dagaalamaya ururka al-shabaab. in la iskaga gudbi waayo deegaanada galmudug waxay sababtay cunno yari baahsan oo ka jirta deegaanadaasi. taasina waxay saldhig u noqotay dhibaatooyin bini'aadanimo maadaama galmudug ay waxyaabaha qutulduruuriga ah kaga yimaadaan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. taasina waxay muhiim u tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka oo la helo. hase yeeshee haatan taasi ma jirto waxaana dadkii ku sababtay baahi iyo macluul fara badan inay ka dhalato deegaanadooda. 2 Febraayo 2020 ayaa madaxweynaha galmudug loo doortay Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo xukunka ku yimid doorasho boob ah iyo qaab aan dadku raalli ka wada ahayn ayaa halays ka dhigtay waayo arag isku wadi kara galmudug. 12 bishii Abriil 2020 ayuu xilka kala wareegay madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo aan doorashiisa ku qanacsanayn hase yeeshee isjiid badan kadib ku qancay doorashada. Qorqor ayaa 3 bil ee ugu horeysay xukunkiisa la soo galay hididiilo dadku wada hanqataageen iyadoo on mar la wada yiri nin isku hayn kara jiir iyo bisad. hogaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa safar dhanka dhulka ah ku tagay deegaanada fognada galmudug. socodkaas ayaa noqday mid dadku u wada riyaaqeen dadka reer galmudugna galiyay hami cusub iyo waa cusub oo Qorqor oo la soo baxay iyo falsafad aysan ka filayn Qorqor. hase yeeshee taas ayaa noqotay mid laga soo minguuriyay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka mid ahaa Qorqor gurihiisa wasiirada. Qorqor ayaa bedelay go'aankiisii oo ku wajahayay deegaanada galmudug wuxuuna ku mashquulay doorashada federaalka. Qorqor oo loo arkayay dhexdhexaadiye curduna kadib qabashadii shirki Dhuusamareeb 1 iyo 2 ayaa bilaabay dhexdhexaadinta dawladda iyo maamulada ka aragtida duwan.
qorqor oo soo qabtay dhuusamareeb 1 iyo 2 ayaa 3 la isugu yimid hase yeeshee waxay wax kasta isbedeleen shirkii dhuusamareeb 3 kadib markii madaxweyne qorqor oo muuqaal iska soo duubay uu sheegay in shirku furan yahay iyadoo ay maqan yihiin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland. muuqaalkaas oo loo arkayay mid farmaajaysan ayaa bedelay hadafkii qorqor wuxuuna madaxweyne qorqor noqday madaxa guud ee ololaha doorashada madaxweyne farmaajo. muqdisho ayaa noqotay xarunta uu ka duulo kuna dego qorqor wuxuuna og yahay nin ku jira suuqgeynta hadafyada madaxweyne farmaajo. baarlamaanka galmudug isna ma shaqeeyo oo wuxuu si sharci darro ah kaga maqan yahay deegaanadii loo doortay. guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa hoteello ka kiraystay magaalada muqdisho galmudugna maba tagaan. su'aalo badan ayaa dul habooganaya qaabka qorqor oo u maarayn doona dhibaatooyinka ka jira deegaanada galmudug. saraakiil ciidan odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin ayaa sanadkii la soo dhaafay 2020 loo dilay aanooyin qabiil. waxay ka ahayd deegaanada Soomaalida in la dilo dadka birmageytada ah mid ceeba hase yeeshee galmudug waxaa ka noqotay mid caadi ah. saraakiisha ciidanka in loo dilo aanooyin qabiil waa dhaqan uubka ah Soomaaliya. waxaa dhintay ciidamadii ugu badnaa ee dawladda Ebid ee lagu dilo qarax iyo qabiil kana dhaca deegaanada galmudug. galmudug wadna uma maqna qaalna uma qodna. haddaba maxaad is leedahay daawade wuu soo kordhin karaa madaxweyne qorqor maadaama uu ku fashilmay sanadkii ugu horreeyay xukunkiisa kadib doorashadii uu ku soo baxay qorqor. waxaan filaynaa inaad nala faafisid warkan oo sii sheer garaysid muuqaalka like saar lana wadaag saaxiibada.